dadyow kala wada qoqoban wuxuu degay qarba meel oo ay qoys noqdeen mid kasta isla qumay dhalanin meel kalaad ka timid laalibeelaad ka timid baladu fiirso adigu waxaad ka timid kaniisada laalibeelo korkeeda dadkii deganaa ee waxaa tahay qoonjaanyamoj la dhihi jiray dadkii qaaqaawada ee jiniga caabudi jiray ee halkaas deganaa ee kaniisada dartood dhulka hoostiisa looga dhistay baa tahay waxaa idin keenay ninkii la dhihi jiray Axmed Guray oo Soomaali ahaa oo tabliiqis iyo waa soo muslimiyay iyo sheekadii Uthmaaniyiinta watay oo Uthmaaniyiinta la shaqeynayay ilaa ma taqaan mogta taariikhda aniga habeen walba dad baa wax bara macallin baa hayba marka live soo galaba dad baa wax bara ilaahay amarkiis soo marka brother adigu dadkaasaad horta asal ahaan ka soo jeedaa isaaq iyo eelayna dhexdooda ma geli kartid kuumana banaana mana kala fufujin kartid taasi waa midaas Somaliland waa dad Soomaali ah feeri way tashteen aqli bay yeesheen waxbay qabsadeen war maxay tahay xaasidnimada Soomaalida qaarkeed ay u qaadeen Somaliland war maxay tahay xaasidnimada bal aqliga ka shaqaysiino xaasidnimada aad hargeyso moolalkeeda iyo gawaadhideeda iyo gabdhaha qurquruxda badan ee labisan iyo wiilasha ciidanka xaasidnimada aad u xaqirayso maxay tahay fiiri yuhuuda dadka la yiraahdo way ka sareeyaan bilo aadanka kale maxay uga sareeyaan xaasid iskuma aha ninka yuhuudka wuxuu ogol yahay ninka kale yuhuudka anagu haddaan Soomaali nahay waxaanuna dadka horta dunida ugu axmaqsan sababtan axmaqiin ku nahayna hadda ni sheegaya war walaalka oo wax xarxartay oo wax samaystay oo soo dadaalay ayaad xasdaysaa Soomaaliland ana aqoonsi uma hayo Soomaaliyana aqoonsi uma hayso sababtoo ah iyadii baba Soomaaliya haliganba laakiin moral baad siin kartaa waxaad dhihi kartaa jabhadii SNM mira dhalinteedii waan arkay burciya hargeysa inta u dhaxaysaan arkay xabtii barbaraan arkay laascaaniya booramaan arkay walaalayaal ilaahay haydan barakeeyo warmay ku dhibaysaa qulubta maad oga tahniyadaysid walaalka maxaa ku diiday inaad walaalka qalbiga ka fasaxdid adoon aqoonsigii u haynin adoon waxba siin karin baad haddana xaasidnimo ka daba qodhabtaa maama Aamina Muuse waxay tiraahdaa koor reer waqooyi tir waa naga afxunyin anagana waa ka uurxunna that's right dadka reer koonfureedka marka ka reeba dadkan raxweynta aniga aan ka dhashay inta kale waxaad moodaa calool madoobaad inay qabaan war heedha war Somaliland nacayb iyo xumaato waxba uga ma qaadaysaan caloosha u fura waa walaalihiin way talaabsadeen u qira war burca waxa ku taala jaamacadda burca ku taala jaamacad caadi miya hada waa hal magaalo jaamacad high class ku taala Soomaaliya dhan hadii la isku soo dardaro والله او بالله او طلع وحيسن هلي كرين جامعه برعو and that's why واحد انت uga soo baxay muqdisho oo boosaaso uga soo baxay oo caawid uga soo hayaantid aad hargeyso u maanaysid oo raadinaysid nolol kuma diidaan kuma cayriyaan kuma nacaan way adigu u nacaysaa business baad ka furanaysaa way ku soo dhaweynayaan wax barashaad u imaanaysaa gurigoodii ay ka kireynayaan adigana calooshaad ka nacabta taasort waa tan hadda generation ka jiro number 2 bariyan oo social media arrin ba istaba socda walaalkay aad ingiriisi fiican oo ga hadlay mana ka daba hadlay mujaahidkayga laakiin inay xoojiyaan raba hadaladiisi horta SNM mujaahidiinta SNM ee iyagoo meydka sita hawdka galay xusuus bay mudan yihiin SNM maxay ku dagaal gashay duurka samxay ku gashay history in la qoriyo in history la soo xasuusi waa shay muhiim ah jabhada SNM waxay duurka ku gashay oo rafaadka arkay umartay ayaa waxay ahayd walaalayaal in dumarkoodii caruurtoodii la gowrgowracay SNM ragii la baxay ee hubka qaatay adeer way ooynayeen niman ilin indhahooda ka socotay ahaayeen dad badan oo xarka ku xadgudbaya SNM oo maafiyay hayeen bibibay meelaha la taagan xaqiiqda waxay tahay mujaahidiintii SNM nin jeclaa kuma jirin inuu qori qaato xaqiiqda waxay tahay mujaahidiinta SNM kuma jirin nin raba inuu wax dilo ayagoo ooyay hubka qaateen saasay u ooynayeen
ilintay ka socotay mujaahidiintii SNM markay hubka guranayeen wada kale ayuu afweyne u diiday isagoo madaxweynaha dalka Soomaaliya isku sheegaya ayuu qabiil kaligiis meel degan oo reer Sheekh Isxaaq ladho oo Soomaaliya oo asal ah oo dad Kenya oo walaalaheena oo hooyadeena oo eedadeena oo habaryarteena ayuu afweyne u diiday hal aan ahayn xabad reer Sheekh Isxaaq waa loo diiday hal aan ahayn xabad watan maanta raxween haysata maalintaasna haysatay afweyne dadkii hubbu u dhiibay SNM waxay ahaayeen raggii inta Itoobiya galay yiri siyaad barrow naga saar ciidanka heshiis baanu diyaar u nahay waxa doontid baanu ku sameeynaa dumarkii caruurta noo siidaa kufsiga dhacaya boobaaba la bilaabay qomiyada jareer weyne anigu walaalahaya qomiyada aniga aan ka soo jeedo raxweena waxa lagu dagaalgelin jiray amxaara dhulka qabsatay bal munaafaqada afweyne iyo ciidankiisa ka buuxday fiiriya iyo faqashti amxaara dhulka qabsato laga saaraya iyadoo SNM laga dhigayo amxaaro taariikhda SNM horta taasay ahayd ninaan dadkiisa qof kamid ah intuu soo duugay inta hartaan u dhimanaya dhin kuma jirin tan kale mujaahidiinta SNM waa lama sabida oo been baa laga samaystaa oo maalin walba dagaal lagula jiraa SNM booramana maysan weerarin laascaanana maysan weerarin ciidankii maxamed siyaad barre afweyne naagta Allah ku fogeeyay uu u soo kireystay iyo diyaaradihii lala dul istaagay reer Sheekh Isxaaq ayaa SNM ka dagaalantay burco magaalada la dhoo boorame SNM nabad bay ku soo kormartay nabad laakiin walaalahay Samaroon markay kursiga 10 sano iyaga iska haysteen oo ay iska fadhiyeen maashi oo la yiri walba kursiga noo qaybiya ilaa Samaroon baa maaragtay xukunka haysay maalinka xukunka laga qaaday Samaroon ayay waxay sameeyeen wax uu sayidkii ku sheegay oo aha markuu kaasi socdan warbu kaasi sida markuu ku soo socdan warbu kaasi sidaay godobiirsiga toogo isla markii xilka ay ka dageen oo Siilaayo oo mujaahid aha oo aha SNM uu kursigii ku fariistay bay dumde oo dal isteed ababa isteed bababa maxaqba maxerba dhul inaan u soo dhimanin Samaroonow dhul inaan u soo dagaalamin dhul uusan afweyne idinka ku gumaadin inaad maanta noocaas ugu dhaqantaan lambar 2 warsangeli iyo dhul bahante ayaa iyaguna waxay sameeyeen abtiyaashay mashruuc bay ka dhigeen mashruuc bay Soomaaliland ka dhigeen shanba xagga soo aaday Hargeysa shanna Garowe fariisataa shan maaragtay dhul bahanta waxay fadhiyaan maaragtay Garowe shan dhul bahanta waxay fadhiyaan Hargeysa shan dhul bahanta waxay fadhiyaan maaragtay shan warsangeli waxay fadhiyaan Hargeysa shan warsangeli waxay fadhiyaan Garowe dhulkoodii iyaga gacanta ku haysta cidna kuma haysato laakiin dhulku waa Somaliland qariirada anagu markaanu fiirino Somaliland bay ka tirsan yihiin there is no other there is no maaragtay Khaatumo there is no Maakhir all of this is fake waa wada Somaliland dhulku qariiradii anagu Britishka noo jeexay ama dhulkii la dhijiro walaalihii Britishka waa Somaliland halkaas anagu nooga egtay booda ama fadhiya Muuse idin huran isagaana janna idin kugu haya taas markaad Soomaaliya ka soo tagtaan oo mujaahidiinta SNM iyo dambiga laga galay aan ka soo noqono SNM yay caawisay anagana caawiyeen Muuse biix laftirkiisa ku jiray nimanka yiri raxween waa islaan waa ummad Soomaaliya ee hal raadiyo ayadoo boqol raxween la iskugu xiraayo oo uu leeyahay siyaad barre afweyne uu ku dhaaranayo inuu dhulka ka sifayn doono waadu fiilay dad dhan Ilaahay abuurtay wuxuu leeyahay dhulkan ka sifaynaya bal Soomaaliya eega dulmiga intaas leeg haddaba SNM maxay ka samaysay arrinkaas SNM waxay ahayn raggii xuduudda soo tallaabay laba nin oo SNM oo reer Sheekh Isxaaq oo waliba habar jeclay inay inaan sii jeclay ayaa waxay ku duugan yihiin gobolka Bakool raggii hubka keenay ahaayeen ee howdka yimid justice ay u caawiyaan walaalahood raxween meeshaas maxaa ka cad SNM fikirkeedu inuu ahaa in dadka oo dhan ay badbaadaan oo waxshiga dad cunka madaxweynaha qabiilka isku bedelay siyaad barre umada laga badbaadiyo halkaas markaa taaganta waxaad faantay SNM inay tahay aabihii xornimada okay maxaa keena gooni sutaaga in badan YouTube waxaan ka aragnaa ma aragtay ii sheeg Muuse biixi oo dhahaya Soomaalinimaanu u dagaalamayna soo qorigiisa wata
SNM mar labaad bay haddana xaq yeelatay markay goosatay sababta oo ah SNM waxay waayeen Soomaali isku toosan oo ay dawlad dhistaan oo ay ma aragtay xukunka afweyne markii laga qaaday koonfurtu way walaaqantay qabiil baa la isu laayay qabiilada yiriba ma aragtay anaga afweynaanu ma aragtay raacsan oo taabacsan xabada la isu qaatay wala weeraray Sheekh Isxaaq dad magac qabiil wataa weeraray way iska soo baaciyeen way fikreen nimana looga wacay lascaano nimana looga wacay buuhodle nimana looga wacay ma aragtay boorama ruuxali anagiyo walaalihi waqooyi intaynu maanta isbadbaadino berito la confirm raadina that was right that was good idea halkaas ay ka timid marka Soomaaliland goonisu taageeda meel ay ku soo noqotona Soomaaliland ma hayso ictiraafka sankaas Allah u saaro heedshow intay dhahan fataq Allah uga soo siiyo way meel loo soo socdaan bajiranba taas halkaas uga tagaya waa mahadii iyo wanaagii iyo ficilkii quruxda badnaa ee jabhadii SNM mujaahidiinteeni badbaadiyaashii Soomaali weyn halkaas marka uga soo tagnay iyaga waxa hadana inta yaala oo in la booqdo oo gadaal loo fiiriyo loo baahan yahay waxay tahay walaalayaal jabhadii Soomaaliya maxay ku kaceen horta why ay jabhadii Soomaaliya u dagaalameen jabhad goormay timaada markay caburin timaado jabhad goormay timaada markii xukunka iyo talada dadka haya ay hal reer intay noqdaan taladoodu ay xumaato ما SNM كليجات باكعده ماي USC باجتي SDM باجتي sababta SNM ilaa maanta lagu haysto maxay tahay dhulkeedii ay haysataa way nabadaysatay SNM dhulkeedii baa nabada intaas waa marka dambiga ay ku jirto way oo Hargeysa ay nabad u tahay maxaa Hargeysa dhufeysay oga dhig weyseen maxaa Burco dhufeysay oga dhig weydeen maxaa rasaas iskugu harqin weydeen is that what you need fucking Somali no unacceptable SNM umaysan dhimanaynin in dhulka uu dhiig ku daato ee waxay u dhimanaysaa inuu dhiig istaago secondly farmaajo waxaan aragnay waxbaan raali gelinayaa leh misana sanka intuu taaga saas isla hole jabhadiina dambiyay galeen ma aragtay bal ha soo cafis doontaan if I ask you one simple question just one simple question su'aal yar oo fudud jabhadihii SNM ma waxay ku dagaal galeen farmaajo dawlad madaxweyne qabiil isku bedelay oo iyaga diyaarado shisheeye u soo kireystay mise iyaga intay hub qaateen Muqdisho xabad ka riday farmaajo wixiisu maraali gelin bay ahayd mise digashay ahayd aanu ahaantayda digashay ahayd dulmi aan meel loo soo dayin iyo digashay ahayd haba haataa halkaas ii dhig Muuse Biixi adaro Muuse Biixiyo let me tell you one simple point let me show you other farmaajo wuxuu dagaal kula jira cid walba oo afweyne iska qabatay dad cunnimadiisi farmaajo wuxuu la dagaalamayaa cid walba oo afweyne oo hana cunin tiriyo qori qaadatay cadaynta koowaad ee ku hayo Muuse Biixiyo aabahay waa taqaanaa waa ninkii gudoomiyaha ka ahaa SDM waa ninkii wadada xudur markuu Maxamed Siyaad Barre ka buuxiyay uu yiri ma aragtay maxay aheeday isheeg miinooyinka raxweena ku baaba'day aabay ninkii wadada isku tijaabinayo ahaa ee miinooyinka ka saaray 2019 kana la dilay dhamaadkeedii sabab kale farmaajo aabay umuuna dilin just SDM buu ahaa buu u dilay Muuse ninkan maanta miis kala fariisatay edishiis baan la galay leedahay soo ma ogid haduu ku helay asna inuu ku dili lahaa garay alla leedahay soddon sano ka bacdi ninka aarsiga maskaxdiisu ay siisay ee la dagaalamay aabahay ee dilay aabahay oo waayeela oo meel iska fadhiyo abo dad ma la qaban karo soo qabitaanka dhan wuu joojiyay sorry aabahay oo 80 jir SDM aan markuu u dilay adiga inuu ku daynayo ma kula tahay war farmaajo haday tiisa tahay dhigii SNM-ta iyo dhulkii lagu xoreeyay dhigii SNM wallahi oo billahi oo talay sidoo anagana yeelo idinkan idin yeeli lahaa intuu amxaara idin soo diro taangi la idin la dhaco bagagagaga bartanka suuqa ayaa siilaayo adigana lagu afduubila sida Mukhtaar Roobo sida aabahay oo kale loo dilay odayaasha mujaahidiinta ahaa waa hadii farmaajo taladiisa ay tahay adaro Muuse Gareen ha noqonin ma istaahishid magacaas Muuse Gareen ma istaahishid Muuse Biixi Cabdi ayaad ku wanaagsan tahay ku
astaaman SNM ku astaaman Somaliland ku astaaman reer Sheekh Isxaaq laakiin Muuse Gareen ha noqonin ha burburinin cadowna ha u ogolaanin inuu Hargeysa soo dhixistaa adeero shalay toleed wixii ubadkiina diyaaradaha la dhacay afweynu ahaa ninkii la dhacay farmaajina afweyna hilbaha dadka ku soo koriyay farmaajo hilbihi waxa lagu soo koriyay Soomaalida قصة برلين قصتين دورن ودفور انتو كمان förstår du vad jag säger? Nej, gå och jag kommer gå och stäng dörren غوري رمشنا مسكح يقولناس سمركا نين كود دغالمايا هبل با ما aragtay maxamed siyaad bar la dagaalamay waa la dagaalamaya hebel ba ma aragtay maxamed siyaad bar maalin ay hadal isdheen waa la dagaalamaya jabhad ba gado ku aruursanaya raxweenan dukum daakum ka dhigaya adeero Muuse xageed u socota nin shabaab quwadiisi gacan ku haysta Ethiopia gacanta kala ku haysta sideed albaabada ugu furata adeero Muuse bixiyo Ethiopia dhinac libaaxiyaan laga tusin Ethiopia way tagtay Ethiopia waxa la ma jirto amxaari Tigray caaw isuma gudbaan oramadii amxaarada ka daran dab iyo benzin bay isku tahay ayadii baa kala tagaysa shan cisha u harta adeero Muuse waxa ku dambayn doona maalinkaad farmaajo cagaa u soo dhigto Hargeysa tan ku dambayn doonta anu Soomaali baan qowmiyada raxween baan jareer weyna dad iigu xigoon ilma adeerna hawiyahaas aanu darisna runtan ku sheegay adigana waad nala dhalatay Soomaalinimadii diirka madooban ku simanay ciidaas adeero dad cuqdad qaba manihin Soomaalidu waa dad wax afida laakiin waxa la cafinayay reer afweyne haday yihiin afiskaas waa lagu haligmaya annaga ku haliganay 1991 wixii ka dambeeyay waxa la bilaabay in Mareykanka dib loo soo celiyo oo la dhaho soo celiya hal iska soo degan ninka shalay tolsas ku qalay mindida ku watay saddex jirka la fuulay dadka boqol loo duugay direeska militariga Soomaali lagu leeynay raxaween boqol loo duugay meelaha qaar waxyaabihii ka dhacay Muuse waxa ka dhacday xabsiga Baydhabo SDM markay soo gashay rag buu wadnaha istaagay oo dhintay caruurta daba jira oo lagu hado hoostooda dhiig ka dacaya oo dhinto madaxa ka bashaaqan oo 2,000 qof dad gaaraya meeshaas loogu tagay rag xiniyaa laga gooyay balaayo dhan maxamed siyaad barre iyo Mareykankii fidnadii uu watay cafiskii aanu cafinay ayagoo saas noo galay aan gada ku soo celinay ilaa Baydhabo keenay adeer maxaanu ka faa'iidnay Muuse iga dhageyso handaraab bay ku yiraahdeen handaraabka hadda qaado wallahi waajib buu kugu yahay maanta handaraabka waajib kugu yahay Muuse bixiyo waa hadda Somaliland u naxayso haday tahay Somaliland aad u soo dagaalantay wallahi billahi saako handaraabka waajib kugu yahay xuduudaha xidiga ku dhaha tan ku dambayn doontaan ku sheegay iga dhageyso adeer Muuse bixiyo kulay SNM tan waan jeclahay ben ku sheegay ma SNM dadkan ugu jeclahay saadayna SNM ahaan lahayn SDM ba ma guuleysateen come on why laakin wakan adeero Muuse baya bakol iyo gado iyadoo la xoreeyad ogeyd Soomaa musiiba ka dambeysay Mareykan bay soo ceshteen hoostay soo gashteen maxaa ka raacay dadaan cafiska aqoon cafis istaahilin cawaan ah cuqdad qabta calooshu madoobaatay dad cun ah hoosta markaad soo gashato cafis baan ka qaatay waxaad igu samaysay aad tiraahdid wuxuu kugu samayn doonaa ka daran ogaadeen baa mahmaho wuxuu yiri Mareykan intuu nabad kaaga gooyo dagaal kugu ma yeelo raxweynay ku dhacdo nabada qaarkeed lama qaato ee qoys baa laga qaataa afhayeenka howlgallada dhinaca militariga al-shabaab Cabdicasiis Maxamed Cadde oo ay ugu yeeraan Abu Mus'ab Mareykan Rasiyaad Xuseen ninkan baa bakol iyo gadalo militariga al-shabaab u qaabilsan yahay Faarax Dheere Mareykan wuxuu ka yahay Cali Dheere taliyaha jabhadda al-shabaab gobolka Gado adeero saddex
taliya ku-xigeenka amiir ku-xigeenka jabhadda gobolka gado cabdiweli aadan guuleed mareexaan reer xasan 5 maxamuud ilka case mareexaan howrarsame taliyaha sirdoonka jabhadda gobolka gado mareexaan 6 nuunow xasan mareexaan reer axmed taliyaha juluusiyaadka ama maaliyadda jabhadda ee gobolka gado geel raxweyn ninka saas u qaadanaya ee gado ee cunahaas haya ee macalin weyne iileysaan taas ku dhigid ee gabaab weyn iyo ma aragtay maxay aheeday iyo gasaar gudo taas ku dhigan ninka raxweynti gado taas ku dhigan dadkii dhulka lahaa ee xoolahooda xoog ku qaadanaya Muuse Biixiyow waa nin mareexan waa nimankii gado la keenay waa nimankii la yiraahdo cafiyay xiriyaha qaxootiga Kenya laga soo bixiyo abaalkeena tan ay ka dhigan 10 sano ay dadka cunayaan lambar 7 Sheekh Xasan mareexan taliyaha wacyigelinta jabhadda gobolka gado ninka ciyaalka raxweyn qarxinaya ee aruursanaya ee ciidanka ka dhiganaya Muuse Biixiyow adeer waa ninkaas waa nin mareexan waxa laga dilanayna waa gado iyo baay iyo bakoor dhulkoodii maanta raxweyn 10 sano laga dad gureynaya lagu baabi'inaya mid la qalo masagada ii soo shukul masagada ii oo soo shukul waa astaanta mareexanka afweyne ciidankiisu markuu militariga u soo xiray dirayska raxweyn masagada soo shukul ee noo keena la dhijiray gabdhaha yar yar ee 13 jirka 12 jirka noo keena waa astaamiya afweyne iyo mareexanka 1990 kugu dambeysay Soomaaliya gabdhaha la fuulo la qalqalo maantay taagan tahay afka intay soo duubtaan Muuse Biixiyow ayaa arligii SDM ay xoog kaga bixisay taas ay ku sameeyeen cafiska mareexan waa kaas marka mareexan ma dhaqmo doofaarnimo daahir lambar 8 Ibrahim Bashir mareexan taliyaha hoggaanka caafimaadka jabhadda waxa idin kala hadlaya aniga ma ahan shabaab yaryaro waa hogaankii ugu sarsareeyay ee bay iyo bakool iyo gado lambar 9 Sheekh Xasan weyne mowqifkiisa wuxuu ahaa adeero Muuse Biixiyow afweyne mowqifkiisa wuxuu ahaa in mareexan galgaduudan ay habar gidirtu ku dhibtay laga soo daadgureeyo raxweyn la soo kordijiyo oo raxweyn noqoto waxay iyagu adoonsadaan iyo dhul ay iyagu leeyihiin iyo waxay dilaan wayna socotaa howlgalkiisa mareexan maalin kama seexan